السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صومالوين ميلو بجوكتان وحاد كسلا بينا سلامة إسلامك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل كاني وشارب الشو ومروا بكرة سعتان بندقة المروا بهل كاني كيسو قد بينه شارب الشو. هداتك عصوبتها هنا سبسكرايب كسارو سي مروا بنا لسعتيت هداد هورين لجوكتي وأصحابته شارب الشو أتكمل هنا إن الله لي أنت سبسكرايب كهرو وصارتنا وحلنا هاي آد بعض ما سنتين أنت كلا أو سبسكرايب كسارت وترى وحلنا هاي دمانتين كسر دوادا شارب شو هذا بقى قضبة عاو كسر قادنا إنه وحكمل قدون كسرة قلها هجامينتا بيرها هوية أضياش بيرها هوية ayaa maanta shirku yeeshay magaalada Muqdisho ka soo saaray go'aamo ku saabsan doorashooyinka dalka Soomaaliya la filayo dhawaan inay ka dhacaan iyo khilaafaadka ka taagan xubnaha golaha xukumi doona dalka ee doorashooyinka maamuli doona ee gudiyaasha doorashooyinka ee madasha xisbiyada qaran iyo musharaxiinta ay magacaabeen iyo kuwii dawladda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo hogaaminayo ay hore u soo magacaabeen. haddaba odayaasha maanta magaalada Muqdisho ku shiray ayaa sheegay in aysan marnaba u dulqaadan doonin in dawladdu ay ku tumato wixii loo soo doortay iyo mandatekeedu intuu ku eka sababtoo odayaasha beelaha hawiye waxay yiraahdeen dawladda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxay lahayd 4 sano oo ay u igmanayd in ay xukunka Soomaaliya hayso balse xilliga kadib laga sugayay doorasho loo wada dhan yahay in dalka laga qabto doorashadaas oo ay qabanqaabiyaan guddi cadaalad oo ka soo shaqeeya doorashooyinka ama guddiga qaran ee doorashooyinka haddaba odayaasha ayaa taageeray musharaxiintu maalin dhaweed guddigii doorashooyinka ee ku dhawaaqeen ayadoo ay sheegeen in guddigaasi ay la shaqeyn doonaan odayaasha beelaha hawiye sida nabadoon xaad oo halkaasi ka hadlay iyo odayaal fara badan oo maanta boqolaal gaaraya oo iskugu yimid shir ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya odayaashu waxay sheegeen in محمد عبد الله فرماجو مدحوينها مدة حلقة سيدة ماتي أو هرتي كنتون يسقالك عشوا أي شيئين إنه كل حري وضدي لقف لي أولنا لصق اللوريجي سداس عمل الدولة دي حصل الشيخ محمود مركو ويقول استترتك وكل جري أصقنا الدولة دي سلسول وي مدة 4 سنة لا شقيني هذا بقى ضياش وحي شيئين إن يبيش عالم كنا كنت جالسين بيان كمان دوت أي صارتي أو إن Soomaaliya ay ka dhacdo doorasho loo dhow yahay oo la soo ogol yahay oo dhammaan dadka kula saamiga siyaasadeed Soomaaliya dadka daneeya arrimaha doorashooyinka iyo dadka xilalka intaba ka raba inay ka qabtaan dawladda Soomaaliya ee soo socota in dhammaantood laga qayb geliyo maamul goboleedyada iyo musharaxiintaba iyo ururada bulshada rayidka haddaba sida loo socono beesha caalamka ayaa shir maalintii darhaadahayd ee ka yeelatay arrimaha Soomaaliya ayay ku sheegeen haddii la qaban waayo doorasho dadku isla ogol yihiin in beesha caalamku dhaqaale badan Soomaaliya uga baxay ciidamada AMISOM ee jooga iyo yagalelidii dawladda Soomaaliya ilaa ku meel gaarkii ilaa ay hadda oo ay dawlad rasmi tahay ay sheegeen bilaayin dollar uga baxeen in ay ayagu doorashadaasi qabanqaami doonaan iskuna keeni doonaan xubnaha doorashada isku diidan taasi oo macnaheeda dadka siyaasadda Soomaaliya indhandeeya ay u fasirteen in beesha caalamku ay doonayso in xalana lagu qabto doorashada ayna soo xulaan taladana laga maroojiyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo musharaxiinta kale ee ka soo horjeeda ee ayaguna guddiga doorashooyinka qaran ku dhawaaqay dadka magaalada Muqdisho iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed ayaa aad iyo aad uga walwalsan sida ay u dhaqmayso dawladda uu hogaaminayo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee muddada aan 60 maalmood dhamayn ay u dhiman tahay ayadoo laga filayay in doorashooyinkii hore ee Soomaaliya ka dhici jiray ama qaabkii Xasan Sheekh Maxamuud ama madaxweynihii ka horeeyay Shariif Sheekh Axmed
ay usoo qabaqaabiyeen doorashooyinka si lamid ah inuu usoo qabaqaabiyo wax allaala iyo wixii laga tabanayana uu turxaan bixiyo si ummadda soomaaliyeed ay u hesho madaxweyne markaas ayagu ay soo doortaan ama golaha baarlamaanka ee cusub uu soo doorto. laakiin beddelkeedii maxamed cabdullaahi farmaajo wuxuu sameeyey inuu gobolladii soomaaliya uu soo kala dhaweysto oo damco maamullo asaga rabaayada u ah inuu ka dhisto iyo kuwii asaga diidanaa sida puntland oo kale ama jubbaland uu geeska geliyo dadkii talada iyo saamiga siyaasadda soomaaliya ku lahaana sida musharaxiinta hadda hadlaya ururada bulshada iyo xisbiyaal badan oo samaysmay ama dadka aad u daneeya in ay soomaaliya ka qabtaan jagooyin sarsare uu talooyinkoodii dhammaan ag maray. balse haatan beesha caalamka ayaa ku qasbaysa maxamed cabdullaahi farmaajo in la soo saaro guddi loo wada dhan yahay oo lagu kalsoon yahay oo doorasho iyo ciidan amniga goobta doorashadu ay ka dhici doonto haddii laisku afgarto sugi doona oo intaba laga midaysan yahay. haddaba odayaasha ayaa sidoo kale sheegay in aysan marnaba aqbali doonin maanta hadalkooda ay soo saareen wax allaale iyo wixii aan la isla ogolayn inaysan ka dhacaynin magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya. mid ka mid a odayaasha halkaa ka hadlayana wuxuu yidhi seediniman farmaajo waxay shoonaynaa ee ila dhegeysi wacan oo aan raacin oon taladooda yeelin intaan taladooda yeelin see la yeela sabar ma jiro sabar waa naga dhamaaday 4 sanaan sabar leeyay 4 sano seedinima ku joogay oo waxaa leenahay ninkii wuxuu seediniyay ma nafti hafarna ma war waa laga xishooha oo heer muqdisho waa ka xishoohaya guriyihii aan gubnay xamar jajab hoteel ku yaalla waa gubnay waagu imaanay waxaa gubay dadweynihii joogay muqdisho say mudaaraadkay ku ay kula tagtay xildhibaanaa deganay xildhibaanadaasay diidayeen farmaajoy rabay intaa waa gara waayay inuu maanta xasuuso dib u xasuuso niyo xoog wax waa lagu waayay xoogna socomaayo nisana socomaydo walaalow gacaliye inaadeerow gacaliye seediyo sida dadku ku leeyahay waa lagu dhahay seediyo waxaa lagaa rabaa baasha dhulka dhig la taliyaasha meesha kuu fadhiya wallaahi inaysan kuu rarayn waa raraya laakiin kuu furi maayaan waniyo waxaa la yidhi dhaan galbeed ninkii raraa habeenkii fura war odayaashaa la tasho waa marjici ragga ku soo qoray oo ku doortay raggii soo saara waayay ragga halkaa fadhiya haddaad gadaashooda ka adeegato gacantogaalaysi yeeli mayno war gacantogaalaysi ma yeelayno ilmihiina in gadaal lagala soo baxa ma yeelayno hadda waxay la tahay marka ninkii digilow kacay inuusan na gaarsiisay digil idinla gaarsiin maayo waa nin garaadoo wax fahmaya oo waa haddaba sida aad maqlaysaan odayaashu waxay yidhahdeen seedinimo ayaan farmaajo uga xishoonnay ee 4 sano oo aan dowladnimada aan ku qadarinaynay. taas waxay caddaynaysaa samirkii iyo dulqaadkii in shacabkii magaalada muqdisho uu ka dhammaaday. haddaba waxaa laga filayaa waxa weeye in maxamed cabdullaahi farmaajo asaguna uu arko ra'yiga beesha caalamka iyo dadweynaha iyo guuxa ay ummaddu qabaan uuna u diyaar garoobo in guddi qaran oo doorasho oo loo midaysan yahay la soo dhiso. haddaba waxay noo soo socdaa barnaamijka ku xiga bandhigeenna. waxaa baryaha bulshada haystay ama la isla dhex marayaa oo aad dhammaan aan ku wada dheegsannahay waxa weeye arrinta abuukar mahdi oo ah kamarimaanista ahaan jiray kaamarooyinka u duuba iyo editinka u sameeya universal tv-ga la yidhaahdo markii dambena furtay channelka youtube-ka ee la yidhaahdo abuukar mahdi channel kaasi oo filmaan badan halkaasi ku matalaan oo ay ku matalaan kooxo badan oo is urursaday oo fanaaniin ah iyo majaajiistayaal ku nool magaalada London ee carigaasi UK. haddaba abuukar mahdi shaqaalihii la shaqaynayay oo barnaamijkaasi kala shaqaynayay fanaaniin iyo abwaano yaryar ah iskugu jiray iyo kooxdaasiba dhammaantood ayaa hadda kala furtay ayagoo ku sheeganaya xaquuq ay ku leeyihiin abuukar mahdi iyo
in uu u diiday xaqii ay lahaayeen oo lacagtii laga samayn jiray riwaayadahaasi sida riwaayadda kaaf iyo kala dheeri qoto qoto iyo riwaayadda hadda socota ee xujo oo channelkaasi uu leeyahay abuukar mahdi lagu soo bandhigo ayay sheegeen in aysan ka helin xuquuqdii iyo wixii allaale waxay ku lahaayeen iyo xushmadii ay ku lahaayeen abuukar mahdi haddaba halkaasi waxaa jirta in riwaayadahaasi ay ka qayb qaateen kala duwan ama bandhigyadaas kala duwan ay soo bandhigayeen sida jilaaga weyn ee ajakis waxaa kaloo ka qayb qaatay basbos oo ah actor weyn waxaa ka qayb qaatay ilhaan xarago waxaa ka qayb qaatay laki xaaji wacays waxaa ka qayb qaadanayoo kale faadumo miina oo ah fanaanad caan ah iyo farax murtiile iyo romeo iyo actarra badan iyo fanaaniin fara badan oo muddooyinka badan caan ka ahaa bulshada soomaaliyeed dhexdeeda balse abuukar mahdi waxaa soomaalidu ku maamaahdaa wadar iyo waaxid yaa waalan marka abuukar mahdi intaas oo qof ah inay baallaha ku dhegaan asagana sharaftiisa kuma jirto waxaana usoo jeedin lahayn in arrintaasi sida ugu dhaqsiyaha badan asaga ayay ku xiran tahay inuu xalliyo dib u heshisiinna uu dhex dhigo dhammaan asxaabtii ay filmaantan soo wada jilayeen ama mashruucan ay ka wada shaqaynahayeen abuukar mahdi asaga ayaa u baahan fanaaniintan waxaana laga yaabaa kuwa hadda la jooga in ay ka tagaan oo la jila filimka xujo ee haatan socda ayadoon ognahay filimkii xujo in aysan dad saase ay ku harin oo bosbas oo actor weyn ahaa iyo muna oo xaaskiisa iyaduna actarad ka ahayd atrisho ka ahayd qaybaha ka mid ah filimka xujo ay ka tageen ilhaan xaraga iyo laki wacays iyo kulli dhammaanna ay hore uga tageen farax murtilana ay sheegeen fanaaniintu markii uu dhaawacmay oo shilka baabuur uu galay allaha ka soo caafiye in abuukar mahdi xitaa uusan taleefon kula hadlin oo uusan dhihin seebay wax kuu gaareen ama xaaladaadu haatan sideebay tahay haddaba waxaan ku bilaabaynaa ajakis oo basbas taleefon kula hadlaya oo leh samirkaagu wuu soo duxayaa iyo qaladkii uu kaa galay abuukar mahdi haddaba ila dhegayso ajakis oo taleefon kula hadlaya basbas منافقو مناكو هدلي مناسب في عم هذا تخانا هذه مسكينة اسكتها مسكينو ليتاي أطلاقين والله بالله الله أتعمل إشابة أتعمل إشابة والله بالله هل البرقسي مسودة هي سوالي وصوفيري يعني منا واسكعلي هي ودلدلمي واسكدعيني أتكاد وقصة من هرتو منا أنا لباتن خف مقعبسهاي لباتن خف وكأدكتهاي والله بالله الله لكن هذه اسكناف ظلمي مدوق ماي وصو ظاهرة ولالكي والله بالله أنيقا أمددن على يابن أمددن على يابن الدون كدن على يابن والله ما اللي سوعوني مالا بوسباس محاوي هاتنا بوسباس iyo kooxda wala kala baxayaan loo ya xaaladda mala oga marka xaaladda dhabta ee hadda mana ka sheekaysi mayno abuukar antoo maraa marka antoo ku neebsaha Soomaali kun Soomaali hadoo keeno bosbas boskiisa ma umatali karaan marka waxa yeelay sida u jeedaan waa ajakis oo la hadlaya bosbos oo dhahaya sabarkaaga iyo dulqaadkaaga uu soo baxaya xaqaagana uu ka soo afbixi doonaa maalin maalmaha kamid ah abuukar mahdi haddaba talooyinka saasina abuukar mahdi hadduu qaato iyo haddii kalena asagay jirta hadduu qaatana asagay u runtahay iyo sumcadiisa iyo barnaamijkan uu wado ee channelkiisa ee ruwaydaha ah ee fanaaniinta kala duwan iyo majaajisiyaashaas kala duwan ay kala qayb qaadanayeen haddaba waxay noo soo socdo kale wadar iyo waaxid yaa waalan baa layidhi faadumina oo iyaduna ka hadlaysa ila dhegaysta iyo hadalladeeda kulkulul ay ku canaaranayso ama ay ku dhalinayso abuukar mahdi ee dhegaysi wacan xaflad laba beri u dhigay dhab soo dhaweyskeeda only me in London u soo dhaweeyay oo walaalanahay aan ku imaanay ruwaydan ku dhignay ruwayda malmalka ani iyadoo banaanka taagan anaga sameynay iyadoo way ogtahay anagoo ruwaydii wadano lamadeen iswadano oo qosleena ku soo galnay abuukar makasti adag ku hadlooya anagu qosleena ku soo galnay waxaan ku dhahnay ruwaydan aan haysanaa haddana koreyna haye koraa tiri ruwayda malmalka aan inta sameynay ma ogid hataa you don't know now
markii magaca isku soo qoraysa ani waa bayaabaabo everything oo ani faarax soo dhignay faaraxna waa ogyahay anigana waa ogaayo mal ayaan noo soo hadlaa faarax ilaahay caafimaad taam allah siiyo my best friend brother kay igu soo daceeya ilaahay hadda waa fiican yahay ilaahay noo saaidey ruwaayada anaka dhididkeena banaanka inaan baxna soo alifna aan ku soo naqeen tiilaki aan ku soo tiilaki anagoo soo sameeyna malmalka meesha ku soo istaagnay oo soo sameeyna soo degan dadka dhan oo sacbay war ruwaay beela sameeysa sheeka beela goos noo dhigno dee ku dhahay waa soo baxay waa iga soo daba orday abu garmaad iga soo daba orday admin inta la ku sheega waa ku imaan maxay tiri admin maxay ku dhaysan kasi show istwaa wajis xujo ma ka helin no gorma ku dhiilaan ku dhahay hadda leeb ka soo kala tekniye hadda leeb soo buuxiyo wallahi billahi waa ku dhaysay aniga iyo boo bilawdo waa itaati moogido waa igu dirtiye makasti waa soo baxay haddana lakeed u tagtay waa noo soo kala turtay isla maalintii waxaan bakaala yaabaa adiga sometimes adigii dadkii aad lee beesood cunoosid oo shilinkood cunoosid oo wax kasta adig ku sameynoosid oo adigii meeshii la rabay intii dhooro laheed aabba adigii kala dilay macnaa inaa la kala didila maaba aqli umaleesi bakaala iska intaas ayaan kusoo gabagabaneynaa bandhiga shaariba show maantay way bishu tahay 9 bisha 12 ee December 2020 meel walba joogto waxaan leenahay mahadsantiin barnaamijkana subscribe waa dhinaciina like-ta iyo share-ka hadii ilaahay nafta uu noogu samo aad iyo aad baad mahadsantiin ummadda Soomaaliyeed madaxa noo saarantiin meel walba joogtaan shaariba show dhamar walba ugu umaada barnaamijyo taysan xagga arrimaha bulshada siyaasadda iyo barnaamijyada hidaha iyo dhaqanka intaba waa shaaribo idinkaga tagaya meel walba joogtaan waqtigu hadii uu calaado wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh